bulshada deegaanka Soomaalidu in badan 80% waa xoolo dhaqato reer guuraa ah oo hadba u hayaama meesha caws biyo iyo dhul daaqsimeed fiican leh wana dhaqan soo jireen oo aan tan iyo maanta dabar go'in waxayna taasi saameyn baan ku yeelataa bulshada magaalooyinka oo aan iyagu helin caana ku filan maadaama xoolihii laga hayaamay caana hada aan subaxii waxaan u qaadnaa magaalada leeyahay Qabri Dahar oo taqriiban noo jirta 235 kilomitir caanaha gilan hada ka shaqeynaa oo shaqaalaha iyo maxaan ku dhahdaa waxyaabaha qorshayaasha hada hawsha aan hayno dhan iyaga dabara wali faa'iidana waa laga helaayo waxa weey wali isagoo aan qorshe ujeedada aan wali gaarin ayaan hadana faa'iido fiican ay keenaan haddaba qurbo joog u dhalatay deegaanka Soomaalida ayaa hirgeliyay qorshaha xoolaha geela loogu dhaqayo nidaam casri ah oo aan gurguritaan lahayn kuwaasi oo markii ay arkeen baahida loo qabo in la helo caano lis ah oo aan inta badan deegaanka Soomaalida laga helin qorshaystay dhaqashada xoolaha geela qorshaha qorshaysan waxa weey hadii la helo geela horta inuu sii bato oo caanihiisu aad u bataan oo ay deegaanka u dhan gaaraan ilaa caasimada iyo goboladaba ay gaaraan balorta marka ugu horeysa caasimada deegaanka iyo gobolka Jarar iyo gobolka Qorraxay saddex goortii inaan gaarsiino mustaqbalka inaan dibadda u dhoofinaan rabnaa hadii la yiraahdo oo ilaa iyo maartay aan banaanka u dhoofinaba ilaa markii sabab intaan ka bilowno ilaa dibadda inaan sii gaarsiino ku dhawaad 400 oo halaad oo geela ayaana lagu dhaqaa aagani goobtani waxay u jirtaa degmada Burqod ee gobolka Jarar oo kaga beegan dhinaca koonfureed qiyaas 5 kilomitir waxayna ku fadhidaa baddan 3,000 hektar waa barxad ballaaran oo la weegaaray oo loo ogolayn in dhinacba ay u dhaafaan geelu si looga helo cad iyo caanaba waxana u qorshaysan in ay sii ballaariyaan goobtani oo ay noqoto goob dalxiis oo loo soo damaashaa tago waxa noo qorshaysan inaanu mashruuc waaweyn oo kala halkan ka sameeyno xagga beeraha iyo xagga magaranaysa haday noqoto hotel iyo gas station ama kaalin shidaal meel ay dawladdu xitaa lafteedu ay u timaado shirarka marka ay ku caajisaan meelaha caasimadaha meelaha ay u soo banaanka ugu yimaadaan oo waxaan rajaynayaa marka dambe ee soo booqdo wasiir Abshir in aan ku soo dhaweyn doono meel qurux badan oo dalxiis oo wada green hadii la cagaar ah oo aad u qurux badan marka mustaqbal fog baan insha Allah ku xisaabtamayna inaan gaarno hadii la yiraahdo wasiir ku xigeenka xafiiska xoolaha iyo horumarinta reer guuraaga ee deegaanka Soomaalida mudane Abshir Umar oo goobtan booqasho ku tagay ayaa sheegay in ka xafiis ahaan ay garab istaagi doonaan maalgashadayaashani kala xafiisku waxyaabo badan oo dhiirigelin doona imika waxyaanaan badnayn baanu mar yar talno farmiga geela marka laga yimaado qalab yar oo shinniya iyo baan ugu daaqnay taageero intaas ugu weynayd iyo talada hore wixii ka dambeeyana insha Allah qaybaha calafka geela ee beerashadan ka caawin doona oo ballan qaadaya imika inaan siin doono dhawaan wixii kale ee khuseeyay ee daweynta xoolaha geela gaar ahaan iyadana waa ugu deeq doona hadii la ka dhigo kulay halka inaanu meel mooreel ah oo nasashada iyo dadka hadii la ka dhigo u noqoto meel loo soo dalxiis tago oo ku dayasho leh ama inay arkaan inaan bulshada sida u egtahay ku soo xidhnaan waa jecelnahay waxaan wahayn socdaal runtii markii aan soo galay xaruntani waxaanu dareemaynay daal fara badan sidoo kale stress baanu dareemaynay laakiin markii aanu aragnay guud ahaan geela iyo nirgaha qayladooda iyo guud ahaanba goobtani nidaamkeeda oo aad moodo qaab nidaam dalxiis ah iyadoo wali qorshihii la maaganaa aan la gaadhin hadana nafsadaanadu waxay dareentay deganaansho fara badan caanaha geela oo runtii dhay ah oo liso aad u kululoo macaan baa lagu soo dhaweeyay guud ahaan jawiga meeshuna waa jawi runtii aad u qurux badan Cabdirasaaq Daaja SRTV xarunta aqoon kaal